waxaan farayaa agaasimaha hay'adda nabad sugidda qaranka inuu muddo 48 saacadood gudaheeda ah uu ku soo Ra'iisul Wasaaraha dalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa war ka soo saaray markii ugu horeysay arintii la xiriiray kiiska gabadhii la weysnaa Igraan Tahliil oo dhawaan hay'adda NISA ee sheegtay in la dilay ee gacanta u gashay kooxda Shabaab. Ra'iisul Wasaare Roble ayaa amar duligay agaasimaha hay'adda sirdoonka nabad sugidda qaranka Soomaaliya NISA Fahad Yaasiin isagoo ku amray muddo 48 saac gudahood ah inuu war rasmi ah ka soo saaro kiiska Igraan Tahliil. waxaan qoyska ehelada iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed la qaybsanayaa murugada xanuunka iyo walwalka ka dhashay warbixinta hay'adda nabad sugidda qaranka ee ku saabsan geerida Igraan Tahliil Faarax. tan iyo intii ay soo bilaabatay arinta Igraan waxaan si dhow ula socday kiiskeeda anigoo faray hoggaanka hay'adda NISA in ay keenaan xog dhameystiran siyayna waqti ku filan, balse nasiib darro warbixinta ay soo saareen ee ku saabsan geerida Igraan ma ahan mid lagu qanci karo oo wadata cadeymo ku filan ama ka jawaabaysa su'aalaha muhiimka ah ee ku saabsan kiiska Igraan. waxaan la socdaa kana warhayaa in sida aan habbooneen ee loo maareeyay kiiska Igraan ay taabatay dareenka iyo qulubta dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, abuurtayna caro iyo falcelin keentay in la afduubo muwaadiniin Soomaaliyeed oo aan wax lug ah ku lahayn arrinkan. haddaba aniga oo ka duulaya arrinkan waxa ummadda Soomaaliyeed u cadeynaya in xukuumadda federaalka Soomaaliya uu waajib dastuuri ah ka saaran yahay ilaalinta xuquuqda aasaasiga ah ee muwaadinka Soomaaliyeed ee ku cad qodobada 10aad 15aad 33aad ee dastuurka kumeel gaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. haddaba anigoo ka jawaabaya cabashooyinka qoyska Igraan iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, tixgelinaya duruufaha uu dalka ku jiro iyo mas'uuliyadda isaaran Allah subxaanahu wa ta'ala hortiisa, waxaan u cadeynayaa qoyska Igraan, qaraabada iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed in xukuumadda federaalka Soomaaliya ay ka go'an tahay in Igraan iyo qoyskeeda ay helaan cadaalad. sidaa darteed waxaan farayaa agaasimaha hay'adda nabad sugidda qaranka inuu muddo 48 saacadood gudaheeda ah uu ku soo gudbiyo warbixin dhameystiran ee ku saabsan kiiska Igraan Tahliil Faarax. waxaan shacabka la socodsiinayaa in marka ay soo dhameystiranto xogta aan u baahanahay aan ka qaadan doono go'aanka ku habboon lana wadaagi doono dhammaan shacabka Soomaaliyeed haddii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala raali ka noqdo. waxaan mar kale shacabka Soomaaliyeed ugu baaqayaa in ay muujiyaan deganaan, mas'uuliyad iyo isku duubni, lagana fogaado in lagu xadgudbo dadka aan waxba galabsan.